بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن تضباطكي هوري أن عشرك وحين كسو جوجيني أن قيبتي حسن كوساب سنيد حسن كان وحير كتابني ما دام كهذا لنا حديثك الصحيحة يشرود اللي قدوني حديثك إنه بوحيو سي أو صحيح النقطة أو صح درجة صحيح إنما الله سيئو عن كهذا لنا دي درجة صحيح إنما ذا وحكدن مان ama uusan buuxinin maxay noqonaysaa darajada ku xigta ee xadiidka noqon karo. Waxaan nidhi aan soo marnay xadiidka la warinayo haddii xifdigii dadkii warinaya shantii shardi ee laga doonayay qofka xadiidka saxiixa warinaya ay ahayd cadaaladii inuu yahay qof wargal ah oo warkiisa la qaadanayo la isku halayn karo alla ka cabsi iyo taqwo iyo dhowrsoonaan leh, xifdigiisu inuu dhammaystiran yahay. Waxaan kasoo hadalnay inuusan warka uu sheegaya ahayn war dadka kale oo dhan khilaafsane, wax dadka kale warkay sheegayaan u dhigma inuu sheegayo oo uusan shaad ahayn, keligii soconin. Waxaan ka hadlay inuusan cillad lahayn, cillo dhaawacayso dhibaato u keenaysa. waxaa kaloo aynu ka hadalnay aynu sheegnay waa in sanadkiisa silsilada lagu warinayo waa inay xiriirsan tahay oo dadka xadiidka soo kala warinaya ilaa iyo qofkii hadalkaas yidhi uu ka gaadhayo, ama nebiga sala allahu alay wasalam ha ahaato ama saxaabadii ha ahaato, ilaa qofkii hadalkaa laga soo wariyey laga gaadhayo silsiladii lagu kala wariyey, dadku se u kala wariyeen qofba qofuu ka maqlay waa inaan haysano. Intaas waxaan ku xigto inoo sheegay haddii xifdigu hoos u dhaco, dabdigii xifdigii laga doonayay qofkan xadiidka saxiixa warinaya intii laga rabay hadduu hoos uga dhaco oo qofkan xifdigiis uusan wanaagsanayn, xadiidka uu qofkaasi soo wariyo hal darajuu hoos u dhacaya, xadiidka wuxuu noqonayaa xasan lidaatihi. meesha uu ka ahaa xasan saxiix lidaatihi wuxuu u daadegayaa xasanun lidaatihi. kabacdi wuxuu inoogu daray intaas haddii aynu hayno xadiid xasanun lidaatihi ah oo dariiqyo badan inoogu yimid, asaaniid badan oo lagu soo wariyey buu leeyahay, marka xadiidkaas waxaan leenahay wabikathrati turuqihi, dariiqyada badan ee uu ku yimid dartood ayaan waxaan ka dhigaynaa saxiix. wabikathrati turuqihi yusaxa, hadduu dariiqyo badan ku yimid waxaan leenahay xadiidkan maadaama intaasoo dariiq uu ku yimid, awalna sababtaan u soo dejinay ay ahayd shaki aan ka qabnay qofkan warinaya xifdigiisa, waan aragnaaba dadkii kale warinayay buu la mid yahay, sida awgeed walwalkian xifdigiisa ka qabnay meeshuu ka baxaya, marka kor baan u qaadana waxaan leenahay xadiidkaas saxiix buu noqonayaa. saxiix lidaatihina ma ahee waxuu noqonayaa saxiixun ligayrihi, marka kor ayuu u kacayaa. kor ayuu u kacayaa oo wuxuu noqonayaa saxiixun ligayrihi. intaasaan marka kusoo joognay, marka waxaan rabay maanta inaan ku bilowno haddii la haydmo tusaale kaas inoo cadaynaya oo inoo muujinaya inaan ku bilowno doonaya. tusaalahan isticmaalayno maanta waa xadiidkan, xadiid xasana weeyaan. xadiidka sanadkiisu waxa weeyaan xadathana maxamedkanna weeyaan qofka aynu doonayno inaan wax iska nihno, qofka xifdigiisa walaaca laga qabo ee su-aashu ka taagan tahay waa maxamedkan. maxamed wuxuu ka warinayaa أبو سلمة أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقى سورينا محمد أوري وحليه النبي صلى الله عليه وسلم هدي أنا المؤمنين أنا أقبق إن دبعت يعليس كل نقطة وحنفري لها وأن أمري لها مركز أي تكنيان إني عضدان. حديث كاس درجتيز وحويان وحسن sababtay xasan u tahayna waxa weeyaan maxamed ayaa xifdigiisa shaki laga qaba oo markii loo eegay xadiisyada uu abu salama ka warinayo marba siba u wariyaa, marna qaab u dhigaa marna qaab kale u dhigaa, marka waxa la xifdigiisa la iskuma halayn karo. laakiin shakhsi ahaan waa nin heer sare ah oo kalsooni lagu qabo, laakiin soomuu dhihin xifdiga hadduu hoos u dhaco waxaan leenahay xadiidkaasi hoos buu uga daadegaya saxiixnimadii. sidaa awgeed maadaama maxamed xifdigiisa uu su-aal ka taagan oo lee kaana yukhtiu wuu gafi jiray xifdiga, sidaa awgeed baa la daciif baa laga dhigay, maadaama xifdigiisa uu ku gafi jiray isagoo qof runsheeg ah likownihi maca sidqihi, isagoo runsheeg ah oon been lagu tuhmaynin oo qof la yaqaano oo ahlulcilmi ah, haddana maadaama uu gafi jiray marmarka qaarkood xifdigiisa layskuma hadlayn karo, sidaa awgeed waxaa leeyahay xifdigiisa hoos baa loo dhigaya. laakiin xadiidkan uu warinayo xasannimadii
maadaama uu taagan yahay isagu darajadii xasanka uu joogo, haddana marka loo eego bikathrati duruqihi, soo inamuu dhihin alxaafid ibn xajar, dariiqyada badan oo isla xadiidkana ku yimid markaan u eegno, waxaan leenahay xadiidkan kor baan u qaadi karnaa, waxaan ka dhigi karnaa saxiix baan ka dhigi karnaa. haddaynu eegno saxiixu lbukhaari, xadiidkan baa ku jira. xadiidkan maxamed ma warinayo, abu salamana lagama warinayo, laakiin abu hurayrihii oo abu salama ka wariyey ayaa laga warinaya. abu hurayra waxaa ka warinaya acraj, abizinaad baa acraj ka warinaya, abizinaadna waxaa ka warinaya imaam malik. imaam bukhaari jidkan ayuu ku warinaya. imaam muslim sidoo kale, bukhaari mar kale jid kaluu ku warinaya, muslim jid kaluu ku warinaya. waad aragtaa waxay isugu imanayaan abu hurayra iyo acraj inuu labadaba ay ku jiraan. imaam tirmidi haddaan tagno, isaga waxaan tegaynaa maxamedkii buu ka warinaya, maxamedkii xasanka xadiidkiisu ahaa ayuu imaam tirmidi ka warinaya. haddaan hoos usii soconno, aan eegno sunan ibni maaja sidoo kale weeyaan, isna xadiidkan ku haynaa. abu hurayrihina waa laga warinaya, waa isla xadiidkii, isla macnihii. dadka haddaanan uga baqaynin dhibaato, waxaan amri lahaa mar kastoo salaad tukanaya inay cadeydaan. imaam nasaa'i xadiidkuu soo warinaya, imaam maalik na waa soo warin. intaas oo dhan waa xadiid dariiqyo badan lagu soo wariyey, oo bikathrati duruqihi. intan oo sawirka aad ka aragtaan oo dhan waa xadiidyo kala duwan, oo waa isla isagii oo intaasoo dariiq lagu soo warinaya macnihiisi, laakiin dad kala duwan ay warinayaan, aanan loo maraynin jidkii maxamed ee jidad kale lagu soo warinayo. sida awgeed waxaan nidhi wabikathrati duruqihi, dariiqyo badan markuu warkaasi ku yimaado, xadiidkii kor baan u qaadaynaa, waxaan ka dhigaynaa saxiix ayaan ka dhigaynaa, darajadiisii waan kor baan u qaadaynaa. haddaba muxuu ku imanaya ereyadan marka xadiidkii xasan iyo saxiixan ka soo hadalnay ee darajooyinkan kor loo qaadayo? marka aynu dabagalkan samaynayno, markaan sidan u dabagelayno ee aan baadhayno cid kale oo taageertay oo awood siisa, cid taageero siisa, marka aan raadinayno, ereyaha meesha inooga imanaya. ereyadaas la isticmaalayo oo aynu halkan ku arki karno qaarkood aan calaamadiyey ayaa qayb inooga ahaanaya casharkan insha allahu tacaala, si markaynu falanqayntan oo kale u akhrinayno. hadde markaad intan akhridid ereyadan uu isticmaalaya, marka uu leeyahay taabacahu wakada taabacahu wakharaja lahu muslim fi mutaabacaat ashawaahid, ereyadan oo dhan markuu leeyahay ma fahmaynaa. marka mustalaxu lxadiid marka lu leeyahay erey bixinta cilmiga xadiidkan baranaynaa, waa ereyadan ay isticmaalayaan ee cilmiga ah in aan macnahooda garanno, si markaan falanqayntan oo kale aan akhrinayno, aan xadiidka qiimaynayno, aan u fahamno culimadu ereyadan isticmaalayaan macnahoodii maxay yihiin. taas inoo fududaynaysa marka waxaan qaadanayno. xadiidkii xasanka ahaa aynu toddobaadkii hore ka soo hadalnay, qaabka kor loogu qaadayo iyo ereyada loo isticmaalayo, baaritaankaas iyo dabagalkaas lagu samaynayo, ayuu alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala casharkan qayb ka mida inoogu dhigaya. qayb kaloo ka midana waxa weeyaan, oo qaybtan aan halkan joogno ah, waa markuu leeyahay fain jumicaa falitaradudi fi nnaaqili xayثu tafarud. saxiix iyo xasan baa ka soo hadlaynay. xadiidkii shanta shardi buuxiyey, si fiican u buuxiyey, waxaan dhahnay saxiix lidaatihi baanu dhahaynaa. xadiidkii xifdigiisu hoos u yara dhacay, qofka warinaya xifdigiisu hoos u yara dhacay, waxaan niri xasanun lidaatihi baynu odhanaynaa. marka ka waran haddii la yidhaahdo, hadda tusaale ahaan xadiidkan inoo eega, xadiidkan wuxuu ku jiraa 40 nawowi ku jiraa. xadiidka waxa weeyaan xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam, rasuulka alle waxaan ka xifdiyey dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka, wixii ku shaki geliya iskaga tag oo waxaad aadaa waxaan shaki kaaga jirin. marka masalo haddii shaki kaa galo, waxaan ma xaraam baa mise waa xalaal, waxaan ma fiican yahay mise ma fiicna, iska badaa, maxaaba shakigaba keen, shakigaba ka bax, oo wixii shaki kaa galo iskaga tag. xadiidkaas rawaahu tirmidi, imaamu tirmidi ayaa wariyey, wannasaa'i, waqaala tirmidi, wuxuu yidhi imaamu tirmidi xadiithun xasanun saxiix. labadii darajo buu isu raaciyey, xasannimadii iyo saxiixnimadii isu raaciyey. marka taasuu xaafid ibn xajar uu ka hadlaya, wuxuu leeyahay fain jumica, xasan iyo saxiix haddii la israaciyo oo labadii darajaba xadiidka hal mar la wada siiyo, laba sababood bay leedahay. falitaradudi, waxaa laga walaacsan yahay oo aan la hubin, fi naaqil, qofka soo warinaya ee soo tabinaya ayaa laga walaacsan yahay meesha heerka uu joogo. darajadiisu ma darajadii saxiixa ah mise darajadiisu way ka hooseysaa, waa darajadii xasanka. walaaca si aan u muujino, waxaan leenahay xasanun saxiix, labadii waan siinayna.
waayo ma hubno kuu yahay labada ku gaarsiisan yahay. taas waa mid. marka ay saas noqonaysana waxa weeyaan xayثu tafarud, marka uu la keliyoobo, marka uu keligii warinayo warkii ee aan cid kaloo la warisay aysan jirin, uu yahay xadiisku uu fardi yahay, waxaan leenahay saasaan u isticmaalayna, waayo ma hubno ninkani ma xadiisku wariyaa ma saxiix buu gaarsiisan yahay mise waa darajadii ka hooseysa ee waa xasan. haddii aysan sida ahayn, sababta labaad aan u isticmaali karna waxa weeyaan wa ilaa fabictibaari isnaadayn, laba isnaad, laba dariiq oo ku yimid ayaa midna wuxuu yahay saxiix, midna wuxuu yahay xasan. marka waxaan leenahay markaan tilmaamayno xadiidkan labada isnaad ku yimid, midna uu saxiixa yahay midna uu xasanka yahay, darajadii waan isugu darayna, waxaan leenahay waa xasanun saxiix, oo aan uga jeedno laba isnaad buu leeyahay, labada midna waa xasan midna waa saxiix. marka taas weeye qeybtan ugu horeysa kitaabkeena casharka maanta inoo sheego. marka wuxuu leeyahay fain jumica, haddii xasannimadii iyo saxiixnimadii labadii darajaba haddii la kulmiyo oo la yihahdo xasanun saxiix, falitaradud waxaa laga walaacsan yahay oo shaki laga qaba oon la hubin fi naaqil, qofka soo tabiyey soo wariyey ayaa shaki laga qabaa, xayثu tafarud, marka uu keligii warinayo. haddii cid kale la soo wariso waa meesheeda, laakiin marka uu keligii warinayo oo uu fardi yahay ayaa shaki laga qabaa. sidaa awgeed baa labadiiba waa la siinaya, go-aan lagama gaari karo ka uu yahay. wa ilaa haddii kalena fabictibaari isnaadayn, oo marka laba sanad oo kala duwan ayaa la qiimeynaya oo la siinaya. marka marna waa inaan la hubin saxiix iyo xasan ku yahay, marka labaadna waa in laba sanad oo kala duwan lagu qiimeynayo. tusaalena waa inaga haysano oo ah xadiiثun xasanun saxiix oo imaam tirmidi uu ku sheegayo xadiidkan dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka. marka qeybta koobaad waa qeybtaas falitaradud ama fabictibaari isnaadayn, labadaas sababood ayaa xadiidka xasanun saxiix loo odhan karaa oo labadii darajaba loo siin karaa. waxaa iman karta haddaba iyaduna oo qeybteeda ugu xigta uu leeyahay wa ziyaadatu raawihima, labadan saxiixa iyo xasanka marka ay ziyaado ku jirto, qofkii soo wariyeyba wuxuu ku daray wax dheeraada oo aysan dadkii kale ku darin. xadiis baa la soo wariyey, dad kala duwan baa soo wariyey, hal qof baa in dheeraada ku daray xadiidkii oo aysan kuwa kale ku darin. marka wuxuu leeyahay ziyaadadaas iyo dheeraadkaas qofka saxiixa ama xasanka soo warinaya waa la aqbalaya, maqbuulatun, waa la aqbalaya maa lam taqac munaafiyatan, haddii aysan ka hor imaanaynin, dheeraadkaas haddii uusan ka hor imaanaynin liman huwa awthaqu minhu, cid ka fiqaysan oo ka raajixsan, ka awood badan, oo warkeeda uu ka awood badan yahay warka qofkan kale, haddii aysan khilaafsanayn, haddii wax khilaafa aysan meesha ku imanaynin oo labadii war aysan iska hor imaanaynin, waa la aqbalaya inta dheeraadka ah. qodobka koobaad wuxuu ahaa xasanka iyo saxiixa labada darajaba waa la israacin karaa haddii laga walaacsan yahay qofkani ma darajadii xasankuu joogaa mise darajadii saxiixa. sidoo kale qofkii xasanka iyo saxiixa warinayey wixii dheeraad uu xadiidka ku daro oo siyaado ah waa laga aqbalayaa haddii aysan ka hor imaanaynin cid ka awood badani warka ay soo warisay. marka aynu eegno kaasna insha allahu tacaala aynu ku tusaalayno. marka waxaan halkan ku haynaa raawi hiqa ah oo warkiisa la aqbalayo, wuxuu ka hor imaanayaa man huwa awthaqu minhu, cid ka awood badan ama tiro ahaan bay uga awood badan yihiin, oo halkuu isagu keligii yahay iyagu waaba 5, mid haddii loo dhigana waa isku darajo, laakiin maadaama ay 5 yihiin tiradoodaas ayaa ka badnaanaysa. wixii uu weriye markaa, wixii uu weriye oo iyaga ku khilaafo, ciddii ka awood badan uu ku khilaafo, waxaan leenahay waa laga awood batay warkiisaas, oo warkiisu waa marjuux hadduu khilaafo weeyaan. cidda uu khilaafay ee ka awood badatayna waxaan leenahay warkeedu waa raajix. isaga warkiisu marka darajada uu yeelanayo iyo erey bixintaan u samaynayno xadiidka waxa weeyaan shaad. waa inaga soo marnay xadiidka saxiixa waa inuusan shaad noqonin. marka qofkii isaga oo hiqa oo warkiisa la qaadanaya haddii uu khilaafo cid ka awood badan, warkiisu waa shaad, waa goonidaaq, keligii buu socdaa, saxiixnimadiina uu ka baxaya, lama qaadanayo, saxiixna ma noqonayo. warka ka soo horjeeda marka aan shaadka ahayn, kii uu khilaafay, isaga waxaynu leenahay warkaasi waa maxfuud. xadiid baa la soo wariyey, 10 qof
baa soo warisay, sagaal baa dhinac maray oo warkiisiba u sheegeen. mid kalaa ku khilaafay oo si kale u sheegay. isaga waxaan leenahay warkaagu waa shaad. warka sagaalka qof ay sheegeen ayaa ah midka sugan, almaxfuud, ka la ilaaliyey ee sugan ee dhowran. kaas weeyaan isaganu qaadanayno. kan labada erey bixinood sidaas aynu u hayno, si aynu u fahamno. xaggee baynu geenaynaa labadan erey bixinood marka tusaale aynu soo qaadano. tusaale aynu soo qaadanana waxa weeyaan ducada aynu wada naqaano marka la addimo: allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadin alwasiilata walfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah. nabigu sal slam wuxuu yihi marka la addimo qofkii sidaas yidhaahda xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama. shafaacadii nebiga sala allahu alay slam ayuu qofkaasi helaya maalinta qiyaamaha. xadiidka markaan u eg inta aan sheegnay wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah ayuu ku dhammaanaya. sidaas waxaa ku soo wariyey imaam bukhaari, sidaas ayay ku soo wariyeen culimada intoodii badnayd. laakiin waxaa jira hal qof oo u soo warinaya si kale. ka xadiidka sanadkiisa haddaynu eegno bukhaari uu ku warinaya wuxuu leeyahay xadathana caliy bnu cayaash qaala xadathana شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إسنادك إمام بخاري وكورني وحكورني علي بن عياش. حديث كان وحكور أمانية مقاما محمودا الذي وعدته. هالكاس انت مركا أينو هاينو عدة سنة كان علي بن عياش dadka ka warinaya ee bukhaari uu ka mid yahay waxaa ka mid a cali ibnu madini, waxaa ka mid a imaam axmed ibnu xambal, waxaa ka mid a abu zurca, maxamed ibnu yaxya azuhali, bukhaari, camr ibnu mansuur, maxamed intan 11kaas qof ayaa xadiidka warinaya. 11kuba saas ay u warinayaan. laakiin waxaa jira imaam bayhaqi oo isla xadiidka warinaya ayaa si kale ayuu u warinaya. imaam bayhaqi imaam bayhaqi siduu ku warinaya waxa weeyaan qaybta u dambaysa. imaam bayhaqi wuxuu ka warinayaa maxamed ibnu cawf. maxamed ibnu cawf qaybta ugu dambaysa xadiidka wuxuu ku daray inaka laa tukhlifu lmiicaad. allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadin alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadtah inaka laa tukhlifu lmiicaad. intaasuu ku daray isagu. waa ziyaado, waa dheeraad. kuwa kale kuma aysan darin. sidaa awgeed waxaa layidhi intan maadaama 11kan caliy ibnu cayaash ka soo wariyey aysan intan ku darin, adigu kulli intan oo dhan ba marka kaa hiqaysan. adigoo hiqo ah oo warkaaga la aqbalaya maxamed ibnu cawfow, haddana man huwa awthaqu mink baad khilaaftay. sidaa awgeed warkaaga wuxuu noqonayaa shaad. maxfuudkuna waxa weeyaan in lagu joojiyo wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah. sidaas ayaa maxfuud ah oo 11ka warkooda ayaan qaadanaynaa. taaduna maxay noqonaysaa shaad. keligaaba saa u soo wariyey. markii xadiidka ay intani soo wariyeen waxaan leenahay waa xadiid maxfuud ah, xadiid dhowran oo sugan. xadiidka uu soo wariyey maxamed ibnu cawfna waxaan leenahay waa shaad, uu imaam bayhaqi diiwaan geliyey. intaas waxaan rajeynayaa inaan isla fahamnay labada erey se u kala socdaan. marka maxfuudka waxaa ka soo horjeeda shaadka. oo shaadkiiba ah midkii aan la qaadanaynin, aan ogeyn shuruudda saxiixa inay ka mid tahay xadiidku inuusan shaad ahayn. xadiidku hadduu shaad noqdo saxiix ma noqonayo. iyadoo ay taas weeyaan tusaale aynu qaadan karno, aynu u isticmaali karno. laakiin waxaa jirta haddaba soo maynan dhihin marka xadiidka la warinayo ziyaadada inaka laa tukhlifu lmiicaad waa inay ahaato mid ka hor imanaysa. culimada qaar waxay leeyihiin markaynu eegno haddaan nidhaahno inaka wabcathu maqaaman maxmuudan aladii wacadta inaka laa tukhlifu lmiicaad, wuxuun macluumaad dheeraaday ku dartay laakiin may khilaafin. warkan war ka hor imanaya ma aha. erayo dheeraadun baa meesha ku jira. macnihun bay sii kordhisay mooyaane wax kale kama aysan keenin. sida awgeed culimada qaar waxay leeyihiin xadiidkan ma aha inaynu shaadnimo ku xukumno oo aynu intaa diidno, waynu qaadan karnaa. culimadaas waxaa ka mid a ibnu baaz, ibnu cuthaymiin ayaa ka mid a macluumaad dheeraada un bay ku dartay mooyaane wax iska hor imaatin iyo wax iskhilaafa kuma jiraan meeshii. laakiin tusaale aynu usoo qaadan karno shaadkii iyo maxfuudkii weyaan.
ibnu xajar alcasqalaani wuxuu leeyahy waziyaadatu raawihima saxiixa iyo xasanka ziyaadada uu ku soo daro qofka werinaya maqbuulatun waa la aqbalayaa maa lam taqac munaafiyatan haddii aysan khilaafsanayn oo aysan ka hor imanaynin liman huwa awthaqu minhu cid ka hiqaysan haddii aysan khilaafsanayn waa la aqbalaya fain khulifa haddii ay khilaaf meesha yimaado haddii lagu khilaafo oo lagala hor yimaado biarjax mid ka raajaxsan oo ka awood badan haddii lagala hor yimaado faraajixu kan raajixa ayaa waxaan leenahay waa almaxfuud isaga ayaa midka sugan ee dhowrsoon ee la raba in la qaato wa muqaabiluhu muqaabilkiisa iyo cagsi kan ka soo horjeedana wuxuu noqonayaa ashaad waa kan gooni daaqa keligii soconaya waana la diidaya lama qaadanayo dadka ishaya ee aynu isbarbar dhigayno waa dad ah fiqa warkooda lagu kalsoon yahay haddii aysan sidaas ahayn oo qofkan warka dadka ku khilaaf uu yahay daciif awal horeba warkiisa qof lagu kalsoon yahay ma uusan hayn iyadoo taasi jirtaba haddana dadkiibu sii khilaafay dadka awood badan ayuu khilaafay marka wuxuu leeyahay waa maca dacfi markii ay daciifnimo meeshii jirto weriyihiiba uu yeriye daciif oo iska tabar darano warkiisa uusan aad u xoog badnayn hadduu yahay faraajixu midka raajixa ah ee awood batay ka u khilaafay ee ka awood batay waxaan leenahay macruuf wa muqaabiluhu kan daciifka ah ee khilaafayna wuxuu noqonaya almunkar xadiidka markaan nahan xadiidkaasi waa munkar macnaheedu waxa weeyaan qofka soo werinaya waa qof asalkiisii horeba aan hiqa ahayn ee daciif ah kan qofka hiqada uu soo wariyay ee khilaafayna waxaan leenahay waa macruuf waxaan haynaa maxfuud iyo shaad iska hor imanaya macruuf iyo munkar oo iska hor imanaya taasaan u kala qaadaynaa labadooda marka waxaan nidhi laba hiqa ah markay iska hor yimaadaan ama haba kala tiro badnaadeen hiqooyinkii markay iskhilaafaan kii xadiidkiisu laga awood batay wuxuu noqonayaa shaad kuwii xadiidkoodu awoodda batayna waxay noqonayaan maxfuud bu xadiidkoodii uu noqonaya dhanka kale waa maca dacfi markay daciifnimo meeshay ku jirto ee qofkan warka warinaya awalba uu daciif ahaa dhankii awood batay ee uu khilaafay waa macruuf muqaabiluhu kii daciifka warkii uu warinayana waa munkar waxaan leenahay sida saxda ee warkani yahay waxa weeyaan markaan waxaan macruuf ku tilmaamayna macnaheedu waxa weeyaan warkii la soo wariyey waxaan leenahay warkaas sida saxda ah ee ku saxan yahay waxa weeyaan ee macruufka ah waa in sidaas loo sheego laakiin qofkan kale warka uu sheegayo waa munkar oo sababtoo ah warkiisu awal horeba isagoo daciif ah buu dadku khilaafay ereyada sidaasaan u isticmaalay tusaalaan idin siinaya markaa si aad u fahamtaan tusaale waxa weeyaan xadiidkan baan haynaa xadiidkan waxa weeyaan xadathana cuثmaan حدثنا حبي بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ساس لو ورينيو عورنا من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأقرى الضيف دخل الجنة قفك صلاة أوغا زكاة بحية قفك مرتدانا مرتي الصورة سودوية دخل الجنة جنة يقليا حديث كان سيداس لقو وريي عبد الله بن عباس لقو ورينيو الإمام أبو حاتم علماء حديثك وين كم ذا وحليه حديث كان ومنكر مركو منكر يري محن كفهمينا قفك حديث كان سو ورينيا والراوي مركي هربا أها راوي أن وركيس ضعيف يهي أن لو كرسونان عدة وكو خلافينا وعد كأود بدن وثقة وحلنا حديث كان سيدا لو سو وري منكر كأ لتكيس وحويان حديثك معروف كها حديثك معروف كمحوي هي حديثك معروف كواكن معروف لماذا waxa isku diidan yihiin isku khilaafsan yihiin xawayaan xadiidkani ma aha war nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay sida saxda ah sida uu ku sugan yahay ee lagu yaqaan ereyga macruuf macnaheedu halkaas u galiya marka sida xadiidkan uu ku saxan yahay ee lagu yaqaano ee macruufka waxa weeyaan in uu yahay hadal uu leeyahay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma aha hadal laga soo wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan leenahay haddii loo soo wariyo sidii inuu yahay xadiid nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri waxaan leenahay waa munkar warintani waa munkar warinta macruufka ee saxda waxa weeyaan waa sidan oo macnaheedu waxa weeyaan haddii la yiraahdo nabiga yiri waxaan leenahay waa munkar nabigu saas ma oranin macruufku waxa weeyaan inuu yahay hadal
laga soo wariyey cabdillaahi ibni cabaas oo cabdillaahi ibni cabaas uu leeyahay. saasaan u kala isticmaalaynaa labada erey ee ah macruuf iyo munkar. markay labada dhinacba yihiin hiqana waxaan leenahay kii laga awood batay warkiisu waa shaad, dhankii awood batayna warkoodu waa maxfuud. marka maxay ka siman yihiin? waxaan leenahay shaadka iyo munkarku waxyaalaha ay ka siman yihiin waxa weeyaan almukhaalafa, inay cid kale war ku khilaafeen. warkan ay soo warinayaan wararka kale u khilaafsan yahay, laakiin marka qofka warkaas khilaafka keenay soo wariye uu yahay qof hiqa ah oo lagu kalsoon yahay warkiisa oo caadi ahaan warkiisa la aqbalo, waxaan ku calaamadinaynaa warkaas inuu yahay shaad. qofka warkan dadka kala khilaafay soo warinaya hadduu daciif yahayna warkiisa waxaan ku calaamadinaynaa munkar. sidaas ayaynu u kala adeegsanaynaa labadaas erey. in xadiidkan uu munkar yahay waxaan ku ogaanaynaa inaan xadiisyadii kala eegno, dabagal baan ku samaynayna. waxaan leenahay dadkan kale ee ninkan ka awooda badan ee kan soo wariyey waxay sheegeen in warkan yahay war cabdillaahi ibni cabaas uu leeyahay, oo mar uu nin reer baadiya u yimid ayuu wuxuu ku yidhi man aqaama asalaata qofkii salaada ooga, wa aata zakaata zakada bixiya, wa xaja albayta baytulxaraamkana soo xajiya kacba taga, wa qara dayfa martidana dadka martida u yimaadana marti sooroo soo dhoweeya, dakhala aljanna qofkaasi jannadu gelaya. ka hadal cabdillaahi ibni cabaas uu yidhi oo uu qofka ugu jawaabayey weeyaan, ma ahayn inaad ka dhigtid xadiis nebiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey. warkaaguna waa munkar, war la diiday oo aan la aqbalaynin oo aan waxba kasoo qaad lahayn, sidaas dhankaas marka laga eego. in aynu marka xadiisyadii saas dabagalka ku samayno oo inagoo kuwo kale eegayna oo barbar dhigayna aynu xukumno oo darajooyin siino, waxaan u baahannahay dhowr erey oo kale oon u isticmaali karno arrimahaas aynu xadiidka ku ogaanayno darajadiisa, aynu miisaanka ku saarayno. wuxuu leeyahay alxaafid ibn xajar walfardu nisbi. fardu nisbiga waxaynu soo qaadanay xadiisyada dariiqyada ay ku imanayeen. hadduu xadiidku hal dariiq ku yimaado inuu yahay xadiis qariib ah, hadduu laba dariiq ku yimaado inuu yahay casiiz, hadduu saddex iyo ka badan ku yimaado inuu yahay mashhuur. saasaan soo marnay. fardigii waxaan marka xadiidka qariibka ah marka qaar waxaa loo isticmaala erey bixinta fardinimadiina labay u kala baxdaa. waxaa jira fardi mutlaq ah iyo fardi nisbi ah. fardi nisbiga waxaan tusaale ahaan haddii la yidhaahdo xadiidkan waxaa soo wariyey uun maxay ahayday reer madiina, degaamadii kale laguma soo warinin. waa fardi sabab gaar ah buu fardi ku noqday, ee ma aha micnaheedu hal dariiq keliya inuu ku yimid. marka halka wuxuu leeyahay fardigii sidaas ahaa haddii cid kale ay waafaqdo, in waafaqahu gayruhu, cid kale haddii ay waafaqdo oo ay ku raacdo warkaas lagu soo wariyey fardinimada, warkaa kale ee taageeray ee ku raacay ee waafaqay waxaanu leenahay almutaabic. qofa xadiis soo wariyey, xadiidka waxaan u haysanay inuu yahay xadiis fardi ah. xadiid kale waxaan helnay xadiidkaas ku raacay wuxuu sheegayey, xadiidka kale waxaan leenahay waa mutaabic, waa ku raace kan kaluu raacay, sida awgeed way isxoojinayaan, wuu taageeraya. sababta waxaan u raadina waxa weeyaan inaan helno taageero xadiisyadii inaan u samayno. kan wuu taageeraya waa mutaabic. wa in wujida haddii la helo matnun, xadiidka o dhan lagama hadlay markan isla ereyadii xadiidka sida matniga waa naga niri inama alacmaalu binniyaat weeye matnigii, allahuma raba hadihi dacwati taama weeye matnigii, silsiladii keliya kama hadlayno. marka matni xadiis la macne ah oo isku wax sheegayaan haddii la helana oo u eg, waxaan leenahay waa shaahid. kii hore muxuu ahaa? kani wuu waafaqay, hadduu waafaqana waxaan leenahay waa mutaabic. mid ay isku macno yihiin haddii aan helnana waxaan leenahay waa shaahid, wuu u markhaati kacaya. kumuu raacine wuu u markhaati kacaya. in aan ogaano waxyaalaha inaan ogaano waxaan u baahanna inaan dabagal samayno, inaan xadiisyadii dabagalno oo aan eegno oon soo fiirfiirino xadiisyadii meelihii kala duwanaa aan ku jiray. sida shaqada aan qabanayno, hanaanka aynu u marayno aan isticmaalayna waxaa la yidhaahdaa watatabucu turuq. jidadkii iyo dariiqyadii xadiidka ku yimid in dabagal lagu sameeyana si loo ogaado maxaa mutaabic ah, maxaa taabic ah, maxaa shaahid ah, waxaan u naqaanaa alictibaar. xadiid baa la soo wariyey, xadiidkii waxaan rabnaa
inaan ogaano darajadiisa. waxaan aragnaa xadiidkan hal qof baa werinaya, waa fardi nisbi baynu nidhi. xadiidkii si aan ugu raadino taageero iyo wax la mida, si aan u xoojinno, waxaanu leenahay waa inaan samayno ictibaar. dariiqyadii lagu soo wariyey xadiidkan aynu soo ururinno, aynu eegno cid ku raacday ma jirtaa wariyahan oo warkiisa xoojinaysa, ma jirtaa cid warkan war la macne ah soo warisay oo aynu odhan karno cid oo markhaatiba u noqon karta, waa shaahid. arrintaas aynu qabanayn ayaa waxaa la yidhaahdaa ictibaar. marka ictibaarkii marka aan samayno waxaan ku helaynaa shaahid maxaa ah iyo maxaa mutaabic ah. ee macnaheedu maaha saddexdan erey in ay yihiin ereyo isu dhigma. ictibaarku waa shaqadii la qabanayay, natiijadii kasoo baxaysana waa inaan helno shaahid ama inaan helno mutaabic ama inaan helno labadiiba inaan soo helno weeyaan. kasaasaan u kala isticmaalna erayadan. tusaale aynu ku eegno xadiis waxaa jira imaamu shaafici raximah allahu tacaala uu werinayo. xadiidkan wuxuu ka hadlayaa bisha imsa maalmood ay noqonayso. marka ramadaanka la gaadho marar badan waxaan aragnaa iyadoo lagu murmayo bishii ma la soomayo mise lama soomayo. xadiisyada lasoo deliishado waxaa ka mid ah xadiidkan imaam shaafici raximah allahu tacaala uu soo werinayo. wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay ashahru 29 falaa tasuumuu xataa tarawu lhilaal walaa tuftiruu xataa tarawhu fain gumma calaykum faakmilu lciddata 30. bishu waa 29. ha soomina ilaa aad bishii oo dhalatay aad aragtaan. idinkoo soomanna ha afurina oo ha ciidina ilaa aad bishii aragtaan. haddii aad bishii arki weydaan ama daruur baa jirta ama si kale aad u arki weydeen, faakmilu lciddata 30. shacbaan 30 ka dhiga, ramadaan 30 ka dhiga. haddii ay shacbaan ahayd oo aad ramadaan sugayseen inay soo gasho aad bishii arki weydeen, shacbaan 30 ka dhiga ee ramadaan markiiba ha bilaabina iyadoo bishu 29 ahayd. haddii ramadaan ay 29 idin ahaydna ha ciidina haddaad bishii arki weydaane 30kii ka dhiga. xadiidku saasuu sheegaya. xadiidka marka waxaa markii hore waa xadiidkan waa xadiid fardi ah oo imaam shaafici baa soo wariyey. laakiin dabagal markii la sameeyey, ictibaar markii la sameeyey, waxaa la soo helay xadiidyo kale oo imaamu shaafici u noqonaya mutaabic iyo shaahidba. marka aynu eegno keebaa mutaabic ah keebaa shaahid ah. mutaabacadu imse u qaybsamaysa, shaahidku muxuu noqonaya. waxaan leenahay xadiidkan inta uu imaamu shaafici kaga duwan yahay ee laleeyahay keligiiba ah tafarada bihi imaamu shaafici lagu leeyahay waxa weeyaan waa 30 ku dhammaystira. waayo dadkii kale xadiidka imaam maalik ka soo wariyey kuma aysan darin 30 ku dhammaystira. sababtaas imaam shaafici uu kaga duwan yahay qolihii kale. haddii intooda kale o dhan ay ka reebeen oo isagu yidhi waxaan dhihi lahayn intani waa shaad, waayo imaam shaafici keligiiba intan soo wariyey, cid kale lamaysan soo warinin. dadkii kale ayuu ku khilaafay. laakiin maxaan helaynaa markaan ictibaarkii samayno aan dabagalkii samayno, waxaan helaynaa saxiixulbukhaariga xadiid ku jira oo isla imaam maalik lagaga soo warinayo jidka imaam shaafici. imaam shaafici raximah allahu tacaala jidkii uu xadiidkiisa ku soo wariyey sidan ay ku jirtay, maadaama la yidhi markii hore waa keligii baa la keliyoobay, dadkii kalena uu ku khilaafay lama qaadanayo. markii baaritaan la sameeyey waxaa la ogaaday inuu bukhaari isla jidka imaam shaafici uu xadiidka ku soo wariyey oo uu ka soo warinayo imaam maalikna laga soo warinayo, ayna ku jirto inta imaam shaafici lagu haystay ee 30 ka dhammaystira. faakmilu lciddata 30. ka imaam shaafici xadiidka bukhaari wuxuu u noqonayaa in waafaqahu gayruhu fahuwa almutaabic. mutaabic buu u noqonaya, waa taabic. waa xadiid ku raacay intuu imaam shaafici soo wariyey in la eg buu wariyey wuuna ku raacay. xadiidka bukhaari marka aynu eegno, xadiidka bukhaari waa kan. imaam bukhaari wuxuu leeyahay xadathana cabdullaahi ibnu maslama xadathana maalik. imaam shaafici wuxuu ka soo warinaya maalik, maalikna wuxuu ka soo warinaya cabdullaahi ibnu dinaar, cabdullaahi ibnu dinaar wuxuu ka soo warinaya cabdullaahi ibnu cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam, nebigu sala allahu alay wasalam inuu yidhi. saas ayuu imaam shaafici raximah allahu tacala xadiis ku warinaya. imaam shaafici wuxuu leeyahay maalik, cabdullaahi ibnu dinaar, ibnu cumar, nebiga sala allahu alayh wasalam. bukhaari wuxuu ka warinayaa, kama warinayo jidka imaam shaafici kama warinayo, wuxuu ka warinayaa qof heerkii imaam shaafici jooga, cabdullaahi ibnu maslama. cabdullaahi ibnu maslama iyo imaam shaaficiba waxay ka warinayaan imaam maalik. imaam maalik wuxuu ka warinayaa cabdullaahi ibnu dinaar,
وإسلا جدكي إمام الشافعي كوريي أيو عبد الله بن مسلمة كورينيا مركا وكراعد بوحدة أو دميستر حالنا ومتابعة تامة إمام عبد الله بن مسلمة شافعي وحكور راعي راعيتان دميسترا وراعيتان بوحة متابعة تامة هديسة لكن وسن مالك لو ذاقي لحين هدي عبد الله بن مسلمة انتو عيد كلا كوريو وهل كان عبد الله بن عمر وكغسو دعو سواء مالك أما عبد الله بن دينار كورينين على ومتابعة قاصرة وكراعيد دميستر كدمان أن دميسترنين تاسو كود مكان متابعة واللبو وإني مد بوحدة هاي وإلا لبدي قف اسكو تشد كسورنيان شيخ يسوي إيمانيان ama haddii ay meel kale la iskaga soo dhacay jidku hadduu meel kale iskaga soo dhacay sida in saxaabiga isugu yimaadaan laakiin isku wax ay werinayaan ama ay isugu yimaadaan cabdillahi bnu dinaar ee maalik uusan ku jirin mutaabaca qaasira ayaynu leenahay uu ku raacay marka imaam shaafici xadiidkii lagu haystay maadaamaan u helnay xadiid kale oo intii la werinaya ma dhihi karona shaaficikiisu waa shaad maadaama uu ku daray fa akmilu lciddata 30 xadiidkiisa kuma calaamadin karo shaadnimo waxaan leenahay xadiidka shaadnimadii waxaan kaga saaraynaa aan kaga riixaynaa in uu helay mutaabaca cid ku raacday warkan uu soo wariyey sida awgeed warkani wuxuu taageero u yahay oo uu xoojinaya warka imaam shaafici ayuu xoojinaya waxaynuna ku helnay inaynu samaynay waxa la dhaho ictibaar jidka inaynu u marnay ayaynu ku helnay warkan marka maadaama kaasuu saas mutaabaca ku yahay waxaa jira war kale imaam annasaa'i ayaa xadiidkiisna warinaya laakiin xadiidka imaam nasaa'i warinayo jidkiisii jid kale aan ahayn ayuu maraya waxaan eegaynaa marka matnigii warkii xadiidka ee ahaa bisha haddaad arki weydaan soddonkii dhammaystira xadiid macnahaas sheegaya haddii aan helno waxaan leenahay xadiidkan wuxuu u marag furayaa xadiidka imaamu shaafici uu soo wariyey ee taabicu maaha maadaama jid kale lagu soo warinayo النسائي وحلي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس كي هو يا لقى ورنيي عبد الله بن عمر كان يا لقى ورنيي عبد الله بن عباس اسكو تشد مصر اسكو تشد مو مريان لكن اسكو ما اسكو وحبي ورنيان إذا رأيتم الهلال فصوموا بيش مركز أركتان صومك بيش أرق هذا كبلابة وإذا رأيتموه إذن كو صوم هذا أركتان فأفطروا صونكي أفر أو عيدة فإن غم عليكم هدي لإذن كذبوا لو بشي أركي ويدان فأكملوا العدة 30 أنت إمام شافعي رحمه الله تعالى أو شاقي مع أنه إذا أيو شاقية سيدا أوجد مرقب النقنية يا الشاهد يا مرخاتي في هرا وكر راعي وركي إمام مالك وشافعي كسو وريي عبد الله بن دينار لقسو وريي عبد الله بن عمر لقسو وريي أياه وحكر راعي عبد الله بن مسلمة كان كما أوسن راعينا وحو النقضي مرخاتي مادام أو دينع كله يدرق كله وركي وككاني ومرق فري markan xadiisyada daba galayno aan rabno inaan dariiqyada ku yimaadeen eegno aan rabno inaan qiimayno awoodda uu xadiidkani leeyahay iyo darajada uu leeyahay waa inaan samayno ictibaar waa inaan dabagal iyo raac ku samayno ictibaarku waa kaas marka waxaan u raadinaynaa haddii xadiidkii aan laan xadiidkani waa xadiid fardi ah aan u baahan haddaan rabno inaan u raadino wax taageera waa inaan raadino shaahid maxaa u ah oo u marag furaya markhaati u noqonaya wax la macno ah waa inaan raadino yaa ku raacay xadiidka hebel uu soo warinayo ma jirtaa cid kale oo waxaan soo warisay oo ku raacday haddii aysan jirin cid soo waris oo ku raacdayna isaga haddii xifdigiisa ama su-aal laga keeno isaga shakhsiyadiisa xadiiskiisi marka wuxuu noqonayaa tuuris laakiin haddii la helo cid ku raacday ama markhaati u noqotay oo wax la mida soo warisay xadiidkiisii taageere u noqonaysa hadduu xasan ahaa dariiqyo badan oo saas uu ku yimid waxaan leenahay kor baa u qaadaynaa saxiixnimadii baanu geynaynaa waxaan leenahay waa saxiixun ligayrihi hadduu daciifnimo looga baqayo oo qarka u saarna in la tuuro waan ku taageeri karnaa waxaan leenahay xasannimaan geynaynaa kan kor baan u qaadaynaa shaqada aynu qabanayno aynu hawlaha ku raadinayno ayaa waxaanu leenahay waa ictibaar ictibaarkana waxaan ku helnaa shaahid iyo waxaa kaloo ku helnaa taabic ku raacaya marka haddii aynu si kale ku kala saarno waxaan leenahay mutaabica ama xadiidka raacaha ah waa in isku jidkii lagu soo warinaya shaafici markuu maalik ka wariyey maalikna uu ka wariyey cabdillaahi ibnu dinaar cabdillaahi ibnu dinaarna uu ka wariyey ibnu cumar haddaan helno cabdillaahi ibnu maslama oo ka warinaya isla maalik cabdillaahi ibnu dinaar ibnu cumar
waa taabic, weliba waa mutaabaco dhammaystiran oo buuxda. haddii laakiin meesha ay isugu yimaadaan aysan ahaan lahayn Maalik, dee Cabdillahi ibni Maslama intuu cid kale ka soo wariyo oo halkan soo maro oo Cabdillahi ibni Dinaar ka wariyo ibni Cumar, waxaan leenahay waa ku raacid kala dhiman, ma dhammaystirna. maadaama warkii ciddii laga soo wariyeyba labadiiba ay isku mid yihiin, waa mutaabaca boqolkiiba boqol buu ku raacay warkii. shaahidkuna waxa weeyaan markii imaam shaafici uu maalik ka soo wariyey, maaligna cabdillahi ibni dinaar ibni cumar, jidkaas iyo jidkan isu eg. imaam nasaa'i isagu wuxuu ka soo warinaya maxamed ibni cabdillaah, maxamed cabdillahi wuxuu ka soo warinaya sufyaan, sufyaanna wuxuu ka soo warinaya camr ibnu dinaar, cabdillahi ibnu dinaar maaha, camr ibnu dinaar buu ka soo warinaya maxamed ibnu xunayn ibnu cabaas, waa jid ka duwan. sida awgeed marag buu u noqonaya markhaati warkan imaam shaafici iyo cabdillahi ibnu maslam ay soo wariyeen inuu yahay war jira oo sugan. kan saddexaad baa markhaati u noqonaya oo u marag furaya. sidaas ayay ku kala duwanaanayaan. intaa markaan isla qaadayna, markaas su-aal baan idin dhiibay haddaba. xadiidkan ila eega, xadiidkan waxa weeyaan jucilat lana alardu masjidan wajucilat turbatuha lana tahuuran. nabiga sal ly slam xadiis laga soo wariyay wuxuu leeyahay dhulka waxaa nalooga dhigay masjid, meesha doontaa ku tukan kartaa, dhulka meel kastoo nadiifood ku tukan kartaa. ciiddeedana waxaa nalooga dhigay tahuuran, wax aan ku dahaaro qaadano, waan ku gagabaysan karnaa ciiddeedii. turbatuha, ciiddeedii waxaa nalooga dhigay. intan turbadan waa ziyaada, somaa dhihin waa ziyaada turaawiihima maqbuula, waa ziyaado dheeraad ah oo aan werino kale ku jirin. muxuu yihi marka fahaadihi ziyaada tafarada biha, waxaa la keliyoobay. xusuuso ereyadii aan dhahnay fard nisbi iyo fard mutlaq baa kala jira. halkan tafarada biha markaynu akhrino waynu garanaynaa macnaheeda. waxaa la keliyoobay abu malik sacad ibnu taariq alashjaci. laakiin inta kale dadka kale soo wariyey sidee bay u wariyeen? wajucilat lana alardu masjidan wa dahuuran. dhulka waxaana looga dhigay masjid, meel lagu tukado iyo wax lagu dahaaro qaato. farqi baa u dhexeeya. kan eg ciid turba baa ku jirta, ciid. kana ciid kama hadlayo. ciidda waxaa dheeraad ka dhigay oo keligii soo wariyey waa abu malik sacad ibnu taariq alashjaci. intaa markaan hayno, halkana usoo gudub haddaba markaa. wuxuu leeyahay walam yanfarid biha abu malik mutlaqan. halkan lama odhanin abu malik baa la keliyoobay. imaam alciraaqi oo u jawaabaya imaam ibnu salax wuxuu leeyahay lama uusan keliyoobin guud ahaan, fard mutlaq marka miyaa mise ma aha? fard mutlaq ma noqon karo maadaama uusan waa kan walam yanfarid biha abu malik mutlaqan, si mutlaqa ulama keliyoobine wuxuu ula keliyoobay wainama tafarada biha fi xadiisi xudayfa. xudayfa marka laga soo warinayo, jidka xudayfa lagaga soo warinayo buu la keliyoobay. muxuu noqonayaa marka fardi nisbi. ereyadii aan soo barannay waxaan ku dabaqaynaa, aan u isticmaalaynaa markaynu akhrinayno lafagurka culimadu ay xadiidka ku samaynayaan. marka imaam ibnu salax wuxuu leeyahy xadiidka waxaa la keliyoobay abu malik sacad ibnu taariq alashjaci. laakiin imaam ciraaqi baa u jawaabay wuxuu leeyahy sidaas ma aha. marka xudayfa laga soo warinayo dariiqaas ayuu la keliyoobay, ee kuwa kale lama uusan keliyoobin. waayo waxaa werinay xadiid cali ibn abi aalib baa laga warinaya. jidka cali ibn abi aalibna abu malik lama keliyoobin. waxaa ka warinaya cali ibn abi aalib, waxaa ka warinaya maxamed ibn xanafiya. sida awgeed xadiidkan sidan haddaan u qaadan lahayn ibnu salax yidhi wuxuu noqonayaa fard mutlaq. laakiin imaam alciraaqi wuxuu inoo sheegay inuu yahay fard nisbi. waa laba xadiiso markaa way kala duwanaanaysa arrintii marka. su-aashu waxay tahay ma taabic ba mise waa shaahid? u fiirso, kan waxaa ku jiray wajucilat turbatuha, ciid buu ka hadlayey. ciidda xadiisyadii kale ee ka duwanaa kamaysan hadlin. wajucilat lana alardu, dhulkoo dhan buu ka hadlay xadiidkan. kan laakiin ciiddu si gaar ah uu tilmaamay. kan cali radia allahu canhu isna laga soo wariyey wajucila liya turaabu tahuuran, isla ciiddii ayuu ka hadlaya turaab. halka kan turaabkii uu ka hadlaya, kana turaabkii uu ka hadlaya, lakin kan kama uusan hadlin. marka maadaama waxa aynu taageerayna aynu rabna inaynu xoojinno
hadalka laga keenay ay tahay tan sare ee turaab, waxaan leenahay kan muxuu noqonayaa shaahid. sababta uu shaahidka ugu noqonaya waxa weeyaan taabica waxaan yidhi waa in isku jidkii waa inay soo maraan, ama ha dhammaystirnaato oo mutaabaca taama ha noqoto ama mutaabaca qaasira ha noqoto, laakiin waa in jidkii lasoo maro ayaynu leenahay. laakiin haddii saxaabi kale, ibni cumar baa laga soo wada warinaya kan, haddii saxaabi kale cali ibn abi aalib radi allahu canhu laga soo wariyey, waxaan leenahay kan shaahid buu u noqonaya, jid kalea lagu soo wariyey, wuxuuna u marag furayaa xadiidkan kale ee sheegaya in xadiidkan ciidda tilmaamaya. Marka xadiidkan ma dhahayno waa shaad. shaadnimadii waxaynu uga saaraynaa markaynu ictibaar samaynay, aynu u raadinay wax taageera shaahid iyo mutaabic, aynu u raadinay, waxaan soo helnay xadiidkan kale oo taageeraya macnihiisa sheegaya. sida awgeed waxaan leenahay xadiidkan waxa weeyaan ma noqonaya shaad. xadiidkan markaa xadiidka saan u calaamadino iyo waxaynu ku xukumno natiija ka dhalanaysa, ila xadiidka waa lagu dhaqmay, axkaam ba ka imanaysa. waxaad laga hadlaya haddii waxa alla subxaana wa tacaala uu inooga dhigay waxaynu isku daahiri karno dahuur, haddii nahna ciiddii weeyaan iyo haddii nahna dhulka weeyaan. dhulkii waxaa ka mid a dhagaxaan, dhagixii baa ka mid a, wax kastoo dhulka oogadiisa saaran ayaa soo gelaya. haddii aan ciiddii ku koobnana dhagixii meeshuu ka baxaya. sidaa awgeed halkaa waxaa ka dhashay khilaaf fiqi ah oo culimmadii ay u kala baxeen qayb leh wax kasta oo dhulka oogadiisa saaran, ama dhagax ha ahaato ama ciid ha ahaato ama quruur ha ahaato, waa lagu gagabaysan karaa. tayamumka waad u isticmaali kartaa wax kasta, waayo xadiidka muxuu leeyahay wajucilat lana alardu, dhulkao dhan buu ka hadlay. marka imaam abu xaniifa, imaam maalik, iyaga madhabkooda waxa weyaan dhinacaasay mareen, waxay leeyihin dhulka wixii ogadooda saar, dhagaxdii halkan ku tira intaad gacmaha ku dhufsatid ku gagabayso. laakiin halkan maxaa ka imanaysa? imaam shaafici, imaam axmed waxay leeyihin waa inaad ciid raadisid, ciid inaad raadisid, maadaama uu xadiidku leeyahay turba uu ka hadlay oo ciid sideeda uga hadlay, dhagixii iyo waxyaalihii kale ka leexo oo ciidda raadso, ciiddii baa tahuur kuu noqonaysa. marka sidaas xadiidkii loo kala daliishanaya, qolo walba kii ay u aragto inuu sax yahay uu yahay xadiidka awoodda badan ayay qaadanaysa. marka xadiidka in xukum la saaro maaha wax layska samaynayo, waxaa ka dhaalanaya natiijo fiqiha lagu camal falayo oo lagu dhaqmayo. kaas waa su-aasha koowaad. su-aal kale markaa mid kale haddaynu eegno, kan su-aal ma aha, laakiin waxoogay waan ku fasiran. tafsiirka ibnu kathiir haddii aan eegno suurat lmuzammil bilowgeeda uu ka hadlayay sida sabab nuzuulka uu kusoo degay, ayaa wuxuu leeyahay, wuxuu soo qaadanaya xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in markii nebiga sala allahu calayhi wasalam ay warkiisa maqleen quraysh intay isu yimaadeen oo ay shireen, inay yidhahdeen balan sidee baynu maxaynu dadka ku nidhahnaa ninkan warkiisa maxaynu u sheegnaa. ka nebiga sala allahu calayhi wasalam inay propaganda ka sameeyaan oo waxa ay dadka kaga fogayaan ay sameeyaan bay doonayaan inay isku afgartaan. qaar waxay leeyihiin ninkan waa sixir wixiisu, qaar waxay leeyihiin ninkan waa kaahin, waa faalalo, qaar waxay leeyihiin wuu waalan yahay, qaar qof wax buu soo jeediyey. warkii ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam gaadhay. marka wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alayhi wasalam maruu isku duuduubay isagoo warkaas ka murugaysan oo dhibsaday, faataahu jibriil calayhi salaam. jibriil baa markaa isagoo xaaladda ku jiro halkaa ku duuduuban intuu u yimid, wuxuu ku soo dejiyey yaa ayuha almuzammil iyo yaa ayuha almudathir, kan isduuduubayo yaa ayuha almudathir yaa ayuha almuzammil. inta waxaa la socota qad xadatha canhu ninkan xadiidka soo warinaya, waxaa leeyahay culimada qaar ba xadiidka soo wariyey, xadiidkeeda uu soo wariyana way qaataan oo way qoraan, laakiin tafarada biaxaadiid laa yutaabacu calayha, oo la keliyoobay uu keligii soo wariyaa xadiisyo laa yutaabac. marka halkan waxaan ku haynaa fardinimadii, halkan waxaan ku haynaa mutaabacadii. marka ninkan isagoo wax keligii soo warinaya ayna cidna ku raacin wuxuu soo wariyo, warkiisa marka muxuu noqonayaa? marka waxaan leeyahay waa tilmaan, waxay ina tusinaysaa wariyahan waxa uu sheegayo inaan lagu kalsoonaan karin. waayo waxyaalo wariyaa aan dadka kale ku raacin, marka keligii ba waxaan soo warinaya. sidaa macnaheed waxa weeyaan waa in wixii laga warinayo laga digtoonaado. ereyadii kutubta tafsiirka xitaa markaan akrinayno,
isla ereyadii aan mustalaxul xadiid ku baranayna baa inoogu imanaya. waayo tafsiirkii meelo badanoo ka mid a waxaa lagu fasiraya xadiid lasoo wariyey. marka markaad aragtid waxtamalu xadiidkiisa way qaata, waa la qoraa. ma aha qof sidiisaba la tuurayo oo matruuk ah, laakiin wararkiisa waa la qortaa. waxaana loo qoranaya waxaa ka imanaysa markaan rabno inaan raadraac samayno ninkan oo kale warkiisa, waxaan ka dhigi karnaa waxyaalaha aan xujaysan karno haddii uu dad kale ku raaco, annaga kana hebel warkiisuna warkan wuu waafaqsan yahay. marka meel buu inoogu kaydsanaanaya. maalintii aan u baahanno waxaa laga yaabaa inaan isticmaalno inaan wax kale ku kabno, laakiin ma joogo heer aan wixiisoo dhan iska tuurayno aan qashinka ku darayno. matruuk maaha sidaan meelo kale ugu tegi doono. laakiin marka la yihahdo tafarada biaxaadiis laa yutaabacu calayha, halka waxaan leenahay shaki baa ina gelaya. ninkan kalsoonida lagu qabayo hoos baan u dhimayna, hoos baan u dhigayna. waxaan leenahay ninkan warkiisu war lagu kalsoonaan karo boqolkiiba boqol ma aha, maadaama uu waxyaalo keligii uu soo wariyo oo cid kaloo ku raacday aan la arkin. waa inaan ka digtoonaano. haddii aynan laakiin been kuma hayno, been maadaama aynan ku haynin, meel inoogu qoro inoo dhiga. haddaynu maalin u baahano maalin haddaynu u baahano xadiid inaynu dabagalno, markaas ayaynu warkiisa isticmaali karnaa, ama mutaabac ahaan ama shaahid ahaan iyo wixii lamid ah. cid kale uu xoojin karaa, laakiin keligii kuma istaagaya warku. marka sababtaan usoo qaatay kan waxa weeyaan inaan aragno ereyadan aan maqlayno meelaha ay ku jiraan iyo sida loo isticmaalayo, inay inoogu noqoto adeegsigii. mid kalena aan idin tuso adeegsi kale. marka inagoo ereyadii oo dhan isla isticmaalayna, haddaba aynu kan hal mar aynu kan dulmarno. wuxuu leeyahay xadiidkan ereyadii oo dhan aan isla soo dulmar. xadiidkii aan soo arkeen ee xasanka ahaa waa xadiidkan weeyaan. xadiidkan ayaa la faallaynaya. waana xadiidkii xasanka ahaa ee ahaa lowlaa an ashuqa cala almu'miniina la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa. xadiidkan oo nebigu sal slam yidhi haddii aanan uga baqaynin inay culays ku noqoto mu'miniinta, waxaan amri lahaa mar kasta inay cadeydaan markay salaad tukanayaan. ayaa halkan lagu faalaynaya. waxaa leeyahay marka ereyadan u baahna aan isla eegno soomaalida inaan calaamadiyey. waxaa leeyahay ninka soo wariyey waxaa la yihahdaa Muxamed ibnu Camr. kama ku leeyahay xadathana Muxamed, magaciisa waxaa leeyahay Muxamed ibnu Camr ibnu Calqama. wuxuu ka soo wariyey Abu Salama. waxaa kaloo jira dad kale oo ka soo warinaya xaytu rawaahu jamaacatun gayru abi salama. abu salamahan soo warinaya xadiidka halkan ku jira dad kale oo aan ahayn jamaaca, koox aan ahayn ayaa ka soo warisay abu hurayra. marka uma baahan, waan ka boodi karnaa maxamed. abu salamana waan ka boodi karnaa. abu hurayra waxaan ugu tegi karnaa inagoo dad kale jidkooda soo marnay sidaan halkan ku arkaynay. abu salama booskiisa waxaan gelin karnaa acraj, booska maxamedna waxaan gelin karnaa abizinaad. halkana maalik baa inoogu jira. marka waan ka maaranaa inaan isticmaalno sanadkan ayuu leeyahy. oo imaam bukhaari iyo imaam muslim muttafaqun calayhi isagoo ah ayaan haynaa. waa kan halkan aan ku aragno. intaa markaan joogno wuxuu leeyahay marka taabacahu waxaa ku raac nacam taabacahu maxamed ibnu ibrahim fima rawaahu maxamed ibnu isxaaq canhu can abi salama. محمد ابن علقمة محمد ابن عمرو ابن علقمة حديث كان وكورني أبو سلمة تابعه وحكر رعي محمد ابن إبراهيم. marka waa qof kale oo la warinaya isla sidii imaam shaafici xadiidkii uu warinayay. maxaa la wariyey maxamed ibn cabdillah ibn maslama ayaa la wariyey. sidoo kalena maxamed ibn camr ibn calqama oo aynu nidhi maadaama uu gafo kaana yukhti oo xifdigiisa laga shakisanaa, qof kale markuu isla xadiidkii la wariyo aan leenahay taabacahu. ereygii baan isticmaalana waa mutaabaca. markaad falanqaynta xadiidka ku aragtid ereygan macnihiisa hadda waad fahmaysaa, waadna garanaysaa. taas waa sidoo kale wakada taabacahu almaqburiyu. waxaa kaloo ku raacay sheekhan kale almaqburi la yiraahdo. iyadana waa isla socona, laakiin waxay kaga duwan tahay saxaabiga warinaya abu hurayre ma ahee waxaa warinaysa caaisha radiallahu canha umu lmuminiin. sida awgeed mutaabacadii ma noqonayso mutaabaca taama, mutaabaca dhammaystira ma noqonayse waa mutaabaca qaasira. way kala dhiman tahay, ma dhammaystirna. waayo waxaan soo aragnay shaafici markuu maalik ka warinayo, maalikna cabdillahi ibnu dinaar, cabdillahi ibnu dinaarna uu ka warinay ibnu cumar, ibnu cumarna uu ka warinay nebiga sal slam. waxaa sidaasoo kale u wariyey cabdillaahi ibnu maslama oo ka wariyey
مالك، عبد الله بن دينار، ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم. ومتابعة تامة. ما دام التاني أيسن أهين وبوسكي أبو هريرة أي كترت عائشة رضي الله عنها وجد كلي هي علينا ومتابعة قاصرة. رجعنا ساسا واستعمالنا labada is ereyba waynu fahmay. sidoo kale waxaynu soo marnay ereyga qofkaas inuu xadiidka la keliyoobay oo xadiidka uu yahay mufrad. xadiidkii markuu xadiisyadii mufradka yahayna oo xadiidka qofka la keliyoobay xifdigiisi laga shakisan yahay oo hoos u dhacana maxaynu nidhi wuxuu noqonayaa xasan xadiidkiisu. sababtaa awgeed ayaa xadiidkan maxamed ibn camr maxamed ibn camr ibn calqama uu warinayo xadiidkan saasaa loogu xukuma inuu yahay xasan maadaama xifdigiisu uusan taam ahayn. wuxuu leeyahy wailaa fahuwa ida infarada marka uu la keliyoobo laa yartaqi xadiithuhu can ilxasan xadiidkiisu xasanka kor ugama kici karo. haddii aynan mutaabaca u helin oo cid ku raacday oo xoojisa aynan helin xadiidkiisu xasannimadii kor ugama kacayo. maxaa dhacay? likownihi maca sidqihi wa jalaalatihi iyadoo runsheegnimo lagu ogyahay oo uu qof la qadarinayo oo qadarin badan iyo ixtiraam badan loo haya uu yahay laguna kalsoon yahay kaana yukhti wuu gafi jiray bixaysu dacif sidaa awgeed baana daciif looga dhigay oo hoos loo soo dejiyey yani darajadiisi looga soo dejiyey. imaam bukhaarina xadiid kama wariyo maxamed ibn camr ibn calqama. imaam bukhaari xadiid keligii uu keligii warinayo kama wariyo ilaa wahuwa maqruunan bigayrihi mar kasta uu ka wariyo cid kalu ku kabaa maadaama keligii xifdigiisii aan lagu kalsoonayn. mar kastuu bukhaari xadiid ka soo wariyo maxamed ibn camr ibn calqama qof kaluu raaciyaa uu ku kabaa. sidoo kale imaam muslim marka uu xadiid ka soo warinayo wuxuu u isticmaalaa mutaabac ahaan keligii uma isticmaalo. marka xadiid uu soo wariyey imaam muslim haddii uu rabo inuu mutaabaco ku daro si u sii xoojiyo xadiidkiisa wuxuu ka soo qaataa marmarka qaarkood maxamed ibn camr laakiin keligii wax mufradnimo uu ku warinayo darajadiisu ma dhaafsiisna darajada xasanka ma dhaafayso. sidaa awgeed saxiix bukhaari iyo saxiix muslim wuu ka gaabinaya darajadooda wuu ka hooseeya. maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaynaa haddii ilaahay idmo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.